madaxweyne xasan sheekho saa inaa yeesho ma ahayn iyadoo muuqaalka madaxweynaha laakiin aniga inaan guri cariish deganaado iyo guri jangada inaan dhisto iyo guri 3 dabaqa 4 dabaqa inaan dhisto ana ii gaartaa wax ka qoseeyo hooyada Soomaaliyeed ee cunugeedii in iskool u dirsata rabtaa ma jirto iskool lacag la'aan ay u baahan tahay uma baahna in hooyadaasi maxaan ku raad daar boqorad waxaa jiri jirtay oo Faransiis ah magaceedu waxaa la dhahayaa Marie Antoinette arrin ee sameysay ilaa ay hadeertan dunida buugaag laga qoray filmaan laga sameeyaa jirto waa hal jumlad waa iyadoo dhan laga hayo oo jumladii oo ahayd let them eat cake waxay ku bilaabatay maadaama boqorad ay ahayd ummadii kama warhayso qasrigaas iska deganeed cabitaankeeda cuntadeeda wax walba jiifka lagu keeni jiray maalinkii dambe waxay maqashay buuq iyo saxmad ka socoto Paris markaasay tiri say wax u jiraan oo dadka maxay ka banaan baxayaan markaas waxaa lagu yiri dadku waxay ka banaan baxayaan sicir barar oo qiimihii rootiga la gadaayay ayaa sare u kacay waxay isla markii la soo booday oo rootigii hadduu qiimihii sare u kacay aysan cuni karin may doolsho cunaan let them eat cake isla markii ay saas tiri haddee dunida waa ilaa hadeertan waa la hadalhaya waxaan waa hore ogaada waagii boqortooyada ay ka jiri jireen Yurub gaar ahaan Faransiiska hadeertaan marka madaxda adduunka aad uga baqaan in shacabka isku diraan ogow Marie Antoinette oo ahayd boqoradaas waxaa gacantooda ku dilay execution lagu dilay waa la dilay oo dadkii dilay al ultimo jagada laga wareegay yacni muhiimadda waxay tahay awoodda waa shacabka waa dadka waay inay isku dirtid oo hadallo xun ama qaab daran ama faan iyo booto inaad adigoo madax ah halisteeda ayay leedahay maxaa yeelay adiga madaxa tahay beri waa bixi kartaa ummadii laakiin weligood kuma iloobayaan weliba maanta casrigan la joogo oo teknolojiyad iyo si walba loo record gareyn kara hadalkan marka xaqiiqda aan ka hadalno mudane xasan sheekh maxamuud oo aniga xafiiska madaxweynaha Soomaaliya waa taageersanaani laakiin mudanaha dhiiqu galay oo maamooyinkii Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed inuu saas oo la hadlo ma ahayn weliba ayadoo xilli aad u xun lagu jiro oo Soomaaliya maanta sicir bar zaid uu ka jiro oo maanta hadda si u fiirisid 60% ummadda Soomaaliyeed laga yaabo inaysan cunin saddexda waqti oo marka xaqiiqda ka hadalno ummadeena waa baahan yihiin oo faqri waxa jirto gaaja jirto dawladii meeshii ay la imaan lahayd farsamooyin ama hadallo ama wax in loo sameeyo ummadaas si dhaqaalihii dadka Soomaaliyeed hadeertaan intooda badan shaqay u baahan yihiin kaliya cid dawladnimada kugu la qabsanayso ama u baahan haba yaratee ma jirto madaxa tahay waa lagu doortay dalkaas ayaa madax u tahay ummadii infrastructure-ka qaabka dalkaas laamiyada ugu dhis lahayd buundooyinka ugu dhis lahayd wadooyinka baaxadooda iyo askartii sida dadka loo taageeri lahaay iyo hadallada noocaas ayaa la rabaa madaxda maanta inay afkooda ka soo baxaan ma ahan aniga shakhsi ay guriga dhisana inta dhisana mudane horta xafiiska madaxweynaha marka kursiga ku fadhisid ina hadalkaas oo kale ay ku hadashid waa qalad maxaa yeelay lacagta ay qaadatid ee mishaarka ah oo caruurtada iskuulka hadda aniga waa wada ognahay mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud Saalaan shalay wuxuu yiri caruurteeda jaamacadaha ugu wanaagsan qaara social science dhigto qaara dhaqaatiir iyo waxaas dhigto qarashaadkaas mudane xasan sheekh maxamuud Soomaalinimo ayaa ku qaadataa oo Soomaaliya u adeegaa waayo waxa mishaarkaas kumanaanka 40,000 dollar bishii lagu siiyo horta waa intaas ummadda Soomaaliyeed waa ognahay iskuul maanta free ah Soomaaliya haba yaratee ma jiro ayadoo waxbarasho iska liidato ayaa caruurta hooyooyinka caanaha suuqa ku gado iyo qudaarta gado ayaa caruurta silac iyo saxariir se lacag u keenaanba ayaga iskuulka ka bixi maanta dadkaas qulubtooda in la dejiyo in si fiican loola hadlo in niyada loo dhiso oo qeer iyo waxyaabo soo socda oo qeeraada in looga sheekeeyo ay mudan yihiin ma ahana in loo faano oo guriga dhisanaya waxba kaama gelin taas madaxweynaha waa ka qaldanta hal mid ayaa rabaa talo inuu soo jeediyo dhalinyarada madaxweynaha la shaqeyso xilligii waxaa la gaaray teleprompter isticmaali lahaydeen madaxda dunida waxay isticmaalaan teleprompter waxa waaye madaxweynaha intuusan hadlin ummadda uusan soo hor istaagin wuxuu sii sheegi lahaa waxaas ha laga sii warhaayo oo ha la horkeena madaxweynaha teleprompterkaas ayaa madaxda badbaadinaya maanta hadallada soo baxo ama afkaada ka soo baxo qaarkood dhiiqay ku gelinayaan dhiiqadaasna way adag tahay inaa ka baxdid
hadda ka hor waxaa tartamay Donald Trump iyo Hillary Clinton dadka xasuusta madaxnimada lagu tartamay Hillary Clinton dhiiqay gashay oo ilaa ay haddeertaan ay ka shalayso waxay ku tilmaamtay dadka Donald Trump taageero ama u codeeyo oo markaas si u fiirisid half dalka markii laba qayb loo qaybiyo qayb ka mid ah Trump ay taageersan yihiin waxay ku tilmaamtay deplorables dad wax sharaf iyo karaama ah oo ay leeyihiin aysan jirin ayay ku tilmaamtay qodobka ugu dambeeya oo soo gabagabeynaya waxa waaye Soomaaliya ilaa haddeertaan waxa ku jirnaa ama kaalinta koowaad ama kaalinta labaad marka la fiiriyo musuqmaasuqa dunida dib u fiiri musuqmaasuqa Soomaaliya markay qeexayaan waxa ka mid ah madax lacag xado tuuganimo cadaalad darro iyo waxyaabahaas iyadoo tii ay jirto mudan madaxweyne oo aan rabnay inaan dagaalkaas musuqmaasuqa kaalinta koowaad ugu jirno saa uga bixi lahayn in aad sii faantid waxay kicin kartaa shucuubta dadka Soomaaliyeed arrinkaas way kicin karaan marka ka fikira ku leeyahay aniga waa ogeed boqorada dhan ee Faransiiska oo islahayd kursigaas weliga kama kiciysid kulleetiga laga soo qabtay al-ultima dadkii dilay ereyadaas iyo qaabdaradaas afkeeda ka soo baxay oo muujiyay inaysan shicibkaba la soconin dadka ay u talisaba la soconin awgeed marka awood ilaaha leh mudan madaxweyne dhalinyarada la shaqeyso ha laga digtoonaado waxyaabaha madaxweynaha uu leeyahay intaas ku soo gabagabay